kulanti wacan daawadayaal ku soo dhawaada bandhiga qaran kaas oo aad diiradda ku saarno dowlad wanaagga, dib u heshiisiinta, daryeelka bulshada, waxbarashada, dhaqaalaha, deganaanshaha iyo nabadda. bandhigan oo aad ka daawataan telefishinka STN waxaanu ku martiqaadnaa mas'uuliyiin uu quseeyo hadba mowduuca aan ka doodeyno. qorshayaasha ammaanka iyo xasiloonida waa sir ay dowlad walba leedahay. waxaan shaki ku jirin in dowladda federaalka Soomaaliya ay leedahay qorshe mustaqbal dhow iyo mid fog oo xagga amniga iyo deganaanshaha ah. midnimada dadka iyo geyga, difaaca dastuurka, ku dhaqanka qaanuunka iyo garsoorka intuba waxa ay ku xiran yihiin in aragti midaysan lagu jaangooyo amniga. xoogga amniga ayaa udub dhaxaad u ah deganaanshaha, walow ay dadku muhiim u yihiin xasilooni ku soo dabaalidda waddanka. mowduuca barnaamijkeena qaran waxaan maanta ku eegi doonaa haddii ciidamada ammaanka Soomaaliya ay hanan karaan amniga waddanka, sidee ayay tahay in dowladda federaalka Soomaaliya ay u waajahdo la tacaalida mushkiladaha amniga. waxaan goordhow idin soo gudbin doonaa waraysi aan la yeelanay Maxamed Nuur Xaaji, falanqeeye arrimaha amniga, khabiirna ku ah arrimaha ciidanka. balse marka hore aan idinla wadaagno waxa ku jira bandhiga. runtii amnigu dowladdu waa mas'uuliyadeeda bal marka koowaad dowladda waxaan u samaysanay oo waliba dowladda federaalka loo sameeyay waxa weeye inay number 1 priority koowaad inay wadanka amniga muwaadiniinta Soomaaliyeed inay sugto oo meel kasta oo looga soo dhacayo haday ahaan leed xuduudihii iyo haday ahaan leed gudihiiba oo runtii ay ka jiraan dhibaatooyin badan ay ka jiraan inay ku guuleysato ay sugto. haddii aan u gudbo marka sidee hadda dowladda jidda ay ugu guuleysan kartaa ama ma ku guuleysan kartaa ammaanka wadanka. runtii waxa moodaa horta hadeer wadanka amniga xaaladda amniga wadanku in khalkhal badan ku jiro, in maalmo badan muwaadiniin la leenayo, in qaraxyo badan ay dhacayaan, in dib badan oo dad badan oo sharwadayaal ay wadanka faa'iideysanayaan. taas waxa sabab ah aan isleenahay dowladdu wali waxay ku guuleysan sidii amnigii wadanka ay gacanta ugu dhigi lahayd. ciidamada Soomaaliya amniga way hanan karaan. sidee ku hanan karaan? waxay ku hanan karaan ciidamada Soomaaliya dhowr hay'adood bay ka koobayeen. dhowrka hay'adood tayadooda haddii la kordhiyo wax la mid ah ma jiraan. qayb kaste qaybkii loo igmaday tayada ciidanimo dhan walba haddii loo dhammaystiro xuquuqdooda sidii loogu talgalay bay u gudan karaan, way hanan karaan. ciidamada AMISOM markii ugu horeysay dalka la keenayay badanaa ciidamo isku toosan maysan jirin. waxaa loogu talgalay markii dalka la keeno in la isku dubarido tayada ciidanimo hay'ad kasto ay qusayso qaybaha ay kala yihiin loo wada dhammaystiro agabkooda iyo xuquuqdooda ilaa intaas laga sii gaarayo inay dalka sii joogaan. waxaan dhihi karaa ciidamada Soomaaliyeed halgamayaal waaye, wax badan ay soo dadaaleen. haddii si loo fiirin waxa way dad waxa way ku filan amniga dalkooda ayahoodana difaacan kara. taasna waxaan uga sababaynayaa misna wala jeedaa waxay tahay ciidanka Soomaaliyeed waxay u soo dhabar adeegeen ama ay u soo joogeen maalmahan ka xun iyo waayahan ka fiicanba. marka sidaa darteed maanta waxaan aaminsanahay inay ku filan yihiin awoodda dalka iyo nabadgelyada iyo amnigaba. taasoo ku micnaynaya inta ay dheeyihiin cadadooda tiro ahaan iyo awoodooda kaliya waxaa ka maqan aaladda hubka iyo sida diyaaradihii iyo maraakiibtii wax badan ka maqan. balse laakiin ciidan ku filan waan haysanaa Soomaaliya, waynu ku filan tahay amniga Soomaaliyeed. taasna cadeen waxa u xilliga xafladaha ay jiraan mise ay jiraan sanad guulooyinka waxaa soo baxay ciidamo aad u tiro badan, taasoo muujinaysa inay tahay Soomaali dal ciidankeedu cagaha uu ku taagan yahay. dowladda Soomaaliya amniga waxay ku hanan kartaa iyadoo dhista ciidan qaran oo aad u xoog badan, sidoo kale ciidamada la qalabeeyo lana siiyo mushaharkooda joogtada ah ee la tayeeyo meelaha laamaha amniga ah nidaam loo sameeyo ciidamo xoog badan oo qaran oo dowladdu ay ku xisaabtami karto ay leedahay oo waajibaadkoodana gudan kara, aan corruption jirin, musuqmaasuq jirin, oo sida saxda ah loo siiyo mushaharaadkooda
dayactirkooda u baahan yihiin loo siiyo nolol maalmeedkooda hadduu ilaahay ku idmaa loo xoojiyo gaadiidkooda loo xoojiyo meelaha darooskooda iyo si ay dadka uga dhex muuqdaan uga socdaan marka dowladda Soomaaliya haddii ay intaas ay ku dadaasho oo ay qabato oo ay samaysato ciidan qaran oo xoogan oo lagu xisaabtami karo aniga shakhsi ahaan waxaan aaminsanahay inay qabanayso amniga dowladdu ay amniga gacanta ku haynayso waa qaar ka mid ah bulshada oo aragtidoodan lala wadaagay sidoo kale waxaan idin haynaa wallahi amniga hadda la sugaayo hodi waa dadaalayaan dadaal wuu jiraa laakiin dadaalkii waxaa ka maqan habraaca ka maqan meeshan hadda xamar markaan nidhaaho ciidamo kastaba waxay leeyihiin waajibaad u gaar ah militariga wuxuu leeyahay waajibaad u gaar ah booliiska wuxuu leeyahay sidoo kale nabad sugidda iyo waxyaabaha noocaas ah haddana hal danguud way ka dhexeysaa difaaca qaranka naqato kulli waa inay difaaca qarankii qoriga u qaataan ay dagaalamaan taas waa mid laakiin midda kale oo loo baahan yahay qolo kastaba iyadoo takhasuskeeda gaarka leedahay howlaheeda gaarka ee jiro haddana waxaa imaan karto in wada shaqeyn ay ka dhex marto sida booliiska nabad sugidda militariga inay wada shaqeyn dhexdooda timaado ayadana loo baahan yahay habraac shaqo in la abuuro kaasi wuxuu ahaa martideenna maanta maxamed nuur xaaji falanqeeye arrimaha amniga khabiirna ku ah arrimaha ciidanka balse marka hore bandhigeenna aan ku bilaabno qaar ka mid ah fikradaha bulshada oo nala wadaagay ciidamada ammaanka ma hanan karaan nabadgelyada waa kuwaan fikradahooda magacaygu waa cabdirashiid cali xasan ciidamada Soomaaliya amniga way hanan karaan waxay ku hanan karaan ciidamada Soomaaliya dhowr hay'adood bay ka koobayeen dhowrka hay'adood tayadooda haddii la kordhiyo wax la mid ah ma jiraan qayb kaste qaybkii loo idmaday tayada ciidanimo dhan walba haddii loo dhammaystiro iyo xuquuqdooda sidii loogu talgalay bay u gudan karaan way hanan karaan ciidamada AMISOM markii ugu horeysay dalka la keenayay badanaa ciidamo isku toosan ma aysan jirin waxaa loogu talgalay markii dalka la keeno in la isku dubarido tayada ciidanimo hay-ad kasto ay qusayso qaybaha ay kala yihiin loo wada dhammaystiro agabkooda iyo xuquuqdooda ilaa intaas laga sii gaarayo inay dalka sii joogaan runtii markaa fiirisidna waxaad u malaynaysaaba in xoogaha gaab badan uu jiro laakiin haddii lagu talagalo amniga si gudbi u hanan karaan taasaan aaminsan aniga ciidamada qeybaha kala duwan qolo kastaba qayb bay qaabilsan tahay qolo kastana shaqadeedana waa gaar marka qolo kaste waa sidaan ugu sheegay bay hoos tagaysaayo qolo kaste qaybtay ayada ay qusayso iyo waxay markaas ay u baahan tahay oo agab iyo dhan walba ay noqoto way ku filnaan kartaayo waa wax la isku baalkeyn karo arkidaad ku aadan ciidanka dalka amniga ma hanan karaan بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورين waxaan u mahadcelinaa dhammaan xukuumadda dalka iyo ciidamada su'aashooda dhiiwarsanaya ama dhiiweydiinayo runaaantii waxaan dhihi karaa ciidamada Soomaaliyeed halgamayaal waaye wax badan ay soo dadaaleen haddii si loo fiirin waxaa waaye dad waxaa waaye ku filan amniga dalkooda aayahoodana difaacan kara taasna waxaan uga sababaynayaa misna wala jeedaa waxay tahay ciidanka Soomaaliyeed waxay u soo dhabar adeegeen ama ay u soo joogeen maalmahan ka xun iyo waayahan ka fiicanba marka sidaa darteed maanta waxaan aaminsanahay inay ku filan yihiin awoodda dalka iyo nabadgelyada iyo amnigaba taasoo micnaha ku micnaynaya inta ay dheeyihiin cadadooda tiro ahaan iyo awooddooda keliya waxaa ka maqan aaladda hubka iyo sida micnaha diyaaradihii iyo maraakiibtii wax badan ka maqan balse laakiin ciidan ku filan waan haysanaa Soomaaliya waynu ku filan tahay amniga Soomaaliyeed taasna cadeen waxa u ah xilliga xafladaha ay jiraan mise ay jiraan sanad guuriyooyinka waxaa soo baxay ciidamo aad u tiro badan taasoo muujinaysa inay tahay Soomaali dal ciidankeedu cagaha uu ku taagan yahay balse ay ka maqan tahay dhaqaalaha iyo hubka micnaha
runaantii cadowga aad la dagaalamaysid waa inaad haysataa hubka ayaga haystaan hub ka casrisan sababtoo ah hadday qoriga ay haystaan ay haystid waxaa waaye faa'iido weyn ma keenayso oo waxaa waaye awooddaada kor ma noqonayso laakiinse haddii hubka ayaga haystaan hub ka casrisan aad haystid waxaa waaye inay ku istaagaan waxaa waaye ma laga sugaayo marka sidaa darteeda waxaa ciidamada Soomaaliyeed kaliya ay ka maqan yihiin ay tahay dhaqaalaha lambar 1 lambar 2 ay tahay saanada hubka militariga hubka dhameysan hadday haystaan hub ku filan waxaan aaminsanahay Soomaali inay ahaanayso Soomaalidii hore la yaqaanay ciidamada amniga Soomaaliyeed waa ciidamo geesiina haddii loo dhameystiro saanidooda maxaa la dhahay mishaaraadkooda iyo dad khibrad iyo aqoon u leh haddii talayaashooda iyo maxaa la dhahay qaybahooda kala duwan la hagaajiyo amniga way sugi karaan taasi waa xaqiiq waaye horeyaa loo soo arkay hadda la arkay marka ciidanka Soomaaliyeed ayaga wadanka amnigiisa sugi karo ciidan shisheeye waxa way kaalmo noqon karaa ciidanka Soomaaliyeed wuxuu amnigu uu ku sugi karaa wadanka Soomaaliyeed ay u dhasheen for example hadda haddaan ka soo qaadano degmooyinkan koonfur galbeed camal ciidamada laga tababaray ciidamada ayaga ahaa haddii raashinkooda iyo mishaarkooda iyo dadka howlgelinta ciidamada khibrad u leh haddii la geeyo oo howlaha ayaan loo dhameystiro waxa waaye waxay garanayaan wadada ay garanayaan tuulada ayaga ay joogaan ay garanayaan meel kasta ay garan karaan marka ciidamada Soomaaliyeed wadooyinka way furi karaan haddii loo dhameystiro saanidooda iyo maxaa la dhahay saadkooda iyo hubkoodaba tan kale haddii uu noqotaanka Soomaaliya laga qaadan way ka sii fiicnaan lahayd oo qoryahooda waaweyn iyo qoryaha yar inta la siiyeen way ka sii fiicnaan lahayd waxa jooga ciidan xoog dalka Soomaaliyeed baa jooga iyo ciidamo koonfur galbeed ee hore ee u tababartay horta ciidamadii iyada waxa way dhammaan horta in la mideeyo way hal talisna loo sameeyo degmo kasta oo ciidanka uu joogana waxa waaye in degmada kale connectionkooda uu socdo wada shaqeyntooda ay socotaa marka ciidamada ayada waa in dib loo habeeyaa training la siiyaa wadaniinad lagu beeraa maxaa la dhahay qalabna waxay u baahan yihiin la siiyaa dadka ciidamada horjooga ka ama taliyaasha ka waa in ayagana training loo fura ayaga naftooda wax la soo baraa iskari ma xumaan kara taliyihiisa hadduu fiican yahay iskariga wuu hagaaga laakiin taliyaha hadduu xun yahay iskariga waxaad maqlaysaa beer heblayo iyo heesta guri dad uu ku dhagan yahay isbaaro dhigtay waxyaas kama dhamaanay marka talayaasha ciidamada waa in la hagaajiyaa way training loo fura wadaniyad la bara marka iskarigan waxa way xuquuqda asaga uu leeyahay waa in la siiyo haddii la siiyo iskariga waxa waaye amarkiisu waa qaadanaa waajibaadkiisuna uu gudan karaa laakiin iskari joogo dhufeys ku jiro xuquuq aan lahayn waxa waaye de wax u qaban kara mala amar hataa ma qaadanayo marka kala dambeyntii sida loo helo waa in xuquuqdooda la helaa qof alla qofkii ayaga ka mid ah oo hawsha qaban karana hawsha waa in loo dhiibaa marka intaasaan kusoo koobi lahaa aad iyo aad u mahadsantahay bismillaahi raxmaani raxiim haddii fikraddeena ku dhiibada la wareegi koraan mayle raayse maybaka la wareegi koraana horta walba marlay la bilaawe mayle raayse ciidanka amniga la wareegi koraan maynaka la wareegi koraana Soomaali oo dhan haddiiba ciidamad xoog la hoblin samay la wareegi koraan mayle raayse ciidan shiriis la sameeyowna ma ciidan hadda ka hor bool sameeyay ciidanka mayliin baahanya in la qalabeey mayliin baahanya markii aad qalabeyd lan koobad hub shiriis la ada siida ma hunguriga intii ku warqabto daawadiis intii ku warqab ciidan dhaaw ama dagaal gala lan hublasi kulay wala ilaahan qori qabsaday laakiin in daawis meelad ka sheegda in hunguriga meel ka sheega mayle raayus tuuli hatta ciidan oo shacabka ka nool yoonay ala qof oo shacab intii hal asgari لسرما أنت اللي نسميه إن ما يلا راه كونفور قلبي عيدمد اللي نسميه عيدمد أو فرع بدن اللي نسميه عيدمد ديوان كورشي قلبه يكمل ميلوك السوق الدرس ما كره وايو ما يسببي دريال دري سببت لانك بني آدم كي هو بيجي كذا خبجين هذا سيدا إن هنجرجي يونين نولليس ميل هذا كوجاد ولا دفع لكن لا أسلوب باه ما يكين دفع إن ما يرى الله هاي كونفور قلبت إن ما يلا رايس
soomaali guud may fikrad ahaantay may qaba ammaanka boqolkiiba wala qobsado korto ammaankeed laakiin lan ku gohno oo may la raayso ku gohno kuy dalkan ya ciidamadan sameey jireedii leeme shakhsiga aan hoblin dhiiba ciidanka sameey hobleer ciidan sameey kor ciidanka lan ko tabaro injii kor wala aruuri kor mushkilad ma leh laakiin qalabay aan baahanyin may la raayso siiliin hulgal fadayaan baahanyin may la raayso walaay lika dagaalan fadayliin baahanyin may la raayso lankii hadaawa ama walaay isugu daawidii aan baahanyin may la raayso hunguri isu aan fadayaan baahanyin dhinac walba baan baahanyin boqolkiiba li wareego karan amaansho aaminsan runtii de amnigu dawladdu waa mas'uuliyadeeda bal marka koowaad dawladda waxaan u samaysanay oo waliba dawladda federaalka loo sameeyay waxa weeye inay number 1 priority koowaad inay wadanka amniga muwaadiniinta Soomaaliyeed inay sugto oo meel kasta oo looga soo dhacayo haday ahaan lahayd xuduudihii iyo haday ahaan lahayd gudihiiba oo runtii ay ka jiraan dhibaatooyin badan ay ka jiraan inay ku guuleysato ay sugto haddii aan u gudbo marka sidee hadda dawladda jidda ay ugu guuleysan kartaa ama ma ku guuleysan kartaa ammaanka wadanka runtii waxa moodaa horta hadeer wadanka amniga xaaladda amniga wadanku in khalkhal badan ku jiro in maamul badan muwaadiniin la leenayo in qaraxyo badan ay dhacayaan in dib badan oo dad badan oo sharwadayaal ay wadanka faa'iideysanayaan taas waxa sabab ah aan isleenahay dawladdu wali waxay ku guuleysan sidii amnigii wadanka ay gacanta ugu dhigi lahayd waxa ka hortaagan baan isleeyahay marka in dawladdu ay ku guuleysato amniga wadanka oo mas'uuliyadeeda koowaad ah oo runtii markii la dhaho ammaan waa wax badan waa hawadii waa badii waa barigii waa xuduudihii waa gudihii kale to muwaadiniinta lagu sugaayay ammaankoodii waa asluubtii iyo jeelashii iyo meelaha dadka lagu dhaqan toosinayay waxaas oo dhan waxay u baahan yihiin ammaan waxay ku imaan karaan marka waxaas oo dhan oo dawladda looga baahan yahay haddii ay dawladdu ay ka go'an tahay inay ku guuleysato amniga wadanka inay samayso ciidan qaran oo isku dhafa ciidan hal gobol ah wadanka ammaankiisa waxba kama qaban karo hadda wadanka Soomaaliya waxa jooga u yaraan 40,000 oo askari oo ajnabi ah waa ku guuleysan la yihiin 40,000 oo askari iyagoo hal magaalo ay joogaan ba magaalada hadda dib kasta ka dhacda inta badan sababtu waxa weeye marka amniga wadankan waxa soo celin kara oo dib u soo celin kara wiil laga qaaday Boosaaso mid laga soo qaaday hadii ilaahay ma hayo meesha ugu dameysa dalka oo meesha la yiraahdo Buulaxaawo iyo inta ka shaysa mid laga soo qaaday sidoo kale gobolada waqooyi kii laga qaaday Muqdisho markii meel la isugu geeyo unit laga dhigo la soo tababaro asluubtooda la saxo la siiyo trading ku filan sidoo kale la siiyo xuquuqdiisa oo xuquuq ku filan ah askariga Soomaaliyeed wax nasiib darro ah wuxuu qaataa $50 oo uusan helin xataa mararka qaar inta badan uusan helin see marka loo raba askari $50 qaata in ammaanka wadanka uu sugo see loo raba inuu ku dhinto see loo raba inuu la diriro cidii wadanka dhibaysay see loo raba inuu kii sharwadaha ahaa iyo kii mukhadaraadka wada iyo kii dhibta wada uu qabto waxaan isleeyahay haddii inta askariga xuquuqdiisu halka ku jirto inta askari hal gobol laga qoray ama hal meel laga qarameeyay wadanka leeyahay waa ciidan qaran xaaladaas ma imaanayso dawladda hadda jirtaan haddaysan barnaamijkaas ku tallaabsan oo ciidanka isku dhafka aysan samayn oo aysan ciidanka xuquuqdiisa siin oo aysan askari waa xaasle waa family ka soo jeeda waa xanuunsan karaa waxaas oo dhan waxa la rabaa xuquuq inuu leeyahay qofku xuquuq u leeyahay sida shaqaalaha kale rayidka ah ay xuquuq u leeyihiin baa waxa la rabaa askarigu inuu ka duwan yahay waliba isagoo priority 1 uu yahay maadaama uu yahay ninkii lagu hurday oo ninka daarta cad hurdaa ninka uu ku hurda uu yahay ninka askariga ah oo miskiinka ah oo tuutaa qaba furinta jooga waxaan marka dawladda kaliya ay ku guuleysan kartaa inay samayso askar caynkaas isku dhafa mushaharkooda ay meel u saadho xuquuqdooda ay bannaan dhigto ayna ka dhigto shaqada koowaad ee dawladdu ay qabanayso wax kale in ku mashquulsho maaha waxa moodaa dawladda arrimaha dibadda iyo meelo kale iyo waxayna ku mashquulshay laakiin waxa laga rabaa dawladdu number 1 inay ku mashquulsho ciidan qaran say u dhisi lahayd wadanka badbaadiya su'aashii kale hadaan u imaado oo ahayd dawladda hadda jirta ama ku guuleysatay ama ku guuleysan kartaa labada su'aal waxaan soo salaamaaniin waxaan isleeyahay inta hadda wadanku soo yahay maya kuma guuleysan karto waana hadda arrinta muuqata oo xaqiiqa oo aan la iska indhitiri karin kuma aysan guuleysan karto waxaan tusaale yar ka siinayaa waagii aynu qaadanay xorriyadda oo 1960 inagoo wax yar jirna waxaa loo sameeyey markii ugu horreysay dowladda Soomaaliya 4,000 oo askari oo ciidan military Soomaaliyeed baa la sameeyey 4,000 oo askari kadib dowladda kacaanku hadii military bay ahayd waxay sameysay military waxaynu gaarnay amni aan la arag oo la maqal oo ninka jooga raas Kamboni ilaa raas Casayr
qofka ariga la jooga markii uu yimaado ay u timaado warqad yar oo la hebel baa ku dacweynaya waa inaad soo gashaa meesha la dhaho xamar adigoo dhaan wada caruurtaada dhaan wada barta laga tagi jiray amnigu halkaas u gaaray يعني halkaas meesha aynu gaarnay yani artigii sii daysid caruurta abiya ugu waday baa waxa galeysay xamar oo adigoo ilaalinaya sharciga iyo nidaamka hadii aad ilaalin weydo waxa ka baqaysa askarigu yani waxa ogtahay nidaamka uu leeyahay iyo qaanuunka uu leeyahay iyo sharafta uu leeyahay iyo awoodda uu leeyahay baa ogtahay marka waxa la rabaa dawladda Soomaaliya inay nidaam caynkaas oo kala ah ay keento inay wadanka dalku meesha uu ka dhintay oo la ka soo dhacay oo dhibta ugu weyn wadanku ka degila yahay madaxweyne walba iyo dawlad walba ay u fashilmayso waa ciidan baan jirin madaxweyne waxa ilaalinaya AMISOM wasiirada waxa ilaalinaya AMISOM xarumaha dawladda wax ku wareegsan AMISOM biri hadda ka baxanin hadda waa hungu banaan ba taagan tahay cid kastana waxa u tahay yani waxa si fudud bay ku qabsan karaan oo ku dantooda kaga gaari karaan aad u maasantihiin inahaas aan ku soo koobaya waxaan leeyahay dawladda waxaan u baaqayaa wali jaanis bay haysataa 2 sano hadda ka tagay 2 sano dambe waxaan ka rajaynaynaa dawladda Soomaaliya anagoo yani shacabku u hanweyn yahay anu hanweynahay aan isleenahay dawladda ugu fiicnayd ee dadku taageersanaa umadu taageersanayd rag ugu macquulsanaa ee hadda hogaaminayaan waxaan ugu baaqaynaa marka inay ciidan qaran oo isku dhafa ay sameeyaan sida federaalka uu yahay iyo nidaamka uu yahayna ay raacaan aysan dhan uga bixin federalismku waxa weeye macnaheedu in wax walba la sheergareeyo oo aan hal meel wax walba lagu koobin wax walba sheer yihiin maamul goboleedyada waxa loo sameeyay inay yani markii maamul goboleedyada la sameeyo wadankiina unit hal mid uu noqdo saasna xaaladdu ku soo baxdo aad baa maasan tahay salaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh bismillaahir rahmaanir rahiim magacayga waa Saadiq Cabdiraxmaan Maxamuud oo ku nool gobolka Karkaar gaar ahaan degmada Qardho walaa musafo su'aasha weydiisay waxaan jeclahay inuu dhacayso sidee bay ku hanan kartaa dawladda Soomaaliya nabad sugidda amniga horta in badanna siyaasi meeyo nin dhalinyaro abaas ka ahay laakiin se hadii aan waxaan dheendheeyay oo fiiriyay dawladda Soomaaliya amniga waxay ku hanan kartaa iyadoo dhista ciidan qaran oo aad u xoog badan sidoo kale ciidamada la qalabeeyo lana siiyo mushaharkooda joogtada ah ee la tayeeyo meelaha laamaha amniga ah ee nidaam loo sameeyo ciidamo xoog badan oo qaran oo dawladdu ay ku xisaabtami karto ay leedahay oo waajibaadkoodana gudan kara aan corruption jirin musuqmaasuq jirin oo sida saxda ah loo siiyo mushaharaadkooda dayactirkooda u baahan yihiin loo siiyo nolol maalmeedkooda hadduu ilaahay ku idmaa loo xoojiyo gaadiidkooda loo xoojiyo meelaha dreskooda iyo si ay dadka uga dhex muuqdaan uga socdaan marka dawladda Soomaaliya hadii ay intaas ay ku dadaasho oo ay qabato oo ay sameysato ciidan qaran oo xoogan oo lagu xisaabtami karo aniga shakhsi ahaan waxaan aaminsanahay inay qabanayso amniga dawladdu ay amniga gacanta ku haynayso ayna noqonayso dawlad hanan karta laakiin hadii inta badan hadii meelaha ugu muhiimsan bay kamid yihiin meelaha aan taabtay oo aan xusay ciidamadu hadii san jirin ciidan lagu xisaabtamo iyo amni iyo ciidamo isku xiran aysan jirin waxa ma sii soconayaan marka dawladda Soomaaliya waxaan kula talin lahaa in ay sidaas sameyso step-ka ugu horeeya ay qabanayaan inay tahay inay sameeyaan ciidamo xoogan oo baahidooda loo dhameystiro oo aan baahi qabin oo hadduu ilaahay ku idmayo dad isku xiran oo xilli kastana ninka askariga uu ku faanay inuu yahay askari muwaadin ah oo Soomaaliyeed laakiin askari aan ku faanin inuu ahayn muwaadin Soomaaliyeed waxba ma qaban karo waxna ma soconayso wax amni la yiraahdo ma soconayaan hadii laakiin la helo ciidan xoogan oo askariga uu ku faanayo inuu dhulkiisa hooyo difaacayo dawladda Soomaaliya amniga waa hanan kartaa kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah daawadayaasheena oo nala wadaagay aragtidooda adigu daawade waa nala wadaagi kartaa fikirkaaga ku saabsan mowduuca maanta kana soo jawaab su'aashan sidee ciidamada ammaanka ku hanan karaan xasiloonida iyo nabadgelyada fikirkaaga ku soo dir fariinta gaaban 411 qaybta dambe ayaan aragtidiina ku soo gudbin doonaa balse markaan aan idinku duwo falanqeeyo arrimaha amniga maxamed nuur xaaji khabiirna ku ah arrimaha ciidanka waan kaaga mahadcelinayaa marka hore waqtiga qayb ka mid ah aad nala wadaagayso anigu waa Cabduqaadir Maxamed Cabdullaahi ku soo dhaw telefishinka STN sideed u aragtaa hanaanka amni sugista Soomaaliya wallahi amniga hadda la sugaayo hodi waa dadaalayaan dadaal wuu jiraa laakiin dadaalkii waxaa ka maqan
habraaca ka maqan meeshan hadda xamar markaan idhaaho ciidamo kastaba waxay leeyihiin waajibaad u gaar ah milatariga wuxuu leeyahay waajibaad u gaar ah booliiska wuxuu leeyahay sidoo kale nabad sugidda iyo waxyaabaha noocaas ah haddana hal danguud way ka dhexeysaa difaaca qaranka naqato kulli waa inay difaaca qarankii qoriga u qaataan ay dagaalamaan taas waa mid laakiin midda kale oo loo baahan yahay qolo kastaba iyadoo takhasuskeeda gaarka leedahay howlaheeda gaarka ee jiro haddana waxaa imaan karto in wada shaqeyn ay ka dhex marto sida booliiska nabad sugidda milatariga inay wada shaqeyn dhexdooda timaado ayadana loo baahan yahay habraac shaqo in la abuuro oo hadhow qaabkii loo wada shaqey lahay oo hanaankii u toosi lahayd in la helo haddaana habraaca shaqo la helin waxa muxuu ahaay ayagii isla jaan qaadi karaayaan maxaa qaldan ama saxan horta waxbaa iska jiro aqoon xumada ay keenayso amar baa la bixinayaa ninba siba u qaadanayaa waxaa la yidhaahaa macanigeeda xogti la keenay oo iyaga la siiyey waajibaadka la siiyey ayaa fahamkii ama communicationka sida macniga bad communication la yidhaahaa qofku marka la yidhaha saan anu kuu sheego qofka u sheeg aan ku yidhaha warkii aan kuu siiyey mida ahayn haddaa u sheegto maxaa imaanayo waa ay fahmi kartaa macniga isgaarsiinta amaawiirta laysku gaarsiinayo waa in dad la tababaray aqoon u leh si fiican loo gaarsiiyo midka kore ilaa ninka askariga ah waajibka u dambeysa la siinayo inay naqato meelaha ay kala joogaan hal amar hal dhaqan taasud waa mid habraaca la shurnayo maxaa kaloo haray shaqooyinka isku dhafan booliiska waajibaad gaar oo leeyahay nabad sugidda waajibaad gaar ee leedahay haddana waxaa imaanayso shaqadii booliiska lahay nabad sugidda oo gacanta ku hayso tii nabad sugidda laheedana booliiska gacanta ku hayo meeshii maxaa ka imaanayo haddana booliiska waxaad moodaa in nabad sugidda booliiska marka la yiraaho inay kaga horeeyaan xog aruuriska muxuu ahaaye xogaha maxaa yeele waaye aragnimo badan iyo waqti soo jireen badan ay abuureen dadkii hore oo nabad sugidda ahaa jira lama hayo waxaa joogaa new faces waaye aragnimadoodaa yar marka waaye aragnimada hadday yaraatana xogaha ay helayna way yaraanaysaa taasa waxay keenaysaa ducfi xagga helidinta xooraanta wararka marka waa taas waaye soomaaliya markaan usoo naqan dib ugu laabto waagi hore waxaa jiri jiray muxuu ahay qolaan la yiraaho muxuu ahaye booliiska oo soomaalida hore waxay u taqaanaan tiftif laakiin waxaa waaye waa taqaana tiftif ay u yaqaan dharcad ahaa jiray waa wareegi jiray laakiin yoo ahay booliis wuxuu ka tirsanayay muxuu ahay qolaan la yiraha isheeg meeshan muxuu ahay immigration maanik waa magaciisa c i d da ayaa aruuri jirta xogaha sayto xog badan keeni jirtay ilaa laga soo gaaro dowladda siyaad bare muxuu ahay la garaad qaaday waa qeyb ka mid ah c i d da oo laga soo jaray oo nabad sugid laga dhigay hadda marka dadkii waa wada cusub yihiin way aragnimadii way yar tahay khibradii way yar tahay xogihii la helaayo iyo sidii loo rabay iyo qaabka loo rabayo inay daciif tahay ayaa meesha ka muuqanaysa ciidamadu hadda way shaqeeyaan oo kulli waa wada qaldan yihiin ma aan dhihi karin laakiin wixii sax ah waa sax oo muxuu ahaay dhaliilba looma yeeli karo laakiin dhaliisha ka soo baxday daaweynteeda loo baahan yahay ciidamada ammaanka soomaaliya ma hanan karaan amniga waddanka dabcan wejiyo badan in la fiiriyo waayo analyse la sameeyo waa hana karaan iyo ma hana karaan in laablakac lagu yiraaha ma ahan hanashada iyo hanash la-aanta in guddi la magacaabo la fiiriyo daraasaad hoose cumqi ah la sameeyo markaasaa la dhihi karaa haa iyo maya laablakac waa dhihi karaa haa maya waa dhihi karaa laablakac lama rabo in daraasaad laga sameeyo ciidankii markii la fiiriyo jawaabihii ka soo baxayo inay noqoto mid la dhihi kara haa ama maya anigu markaan fiiriyey ciidamadu
way tayadooda ayaa liidato, tayada ayaa liidato. tayada markaan ku leeyahay ciidankii kama dhisno, shayga bayska ah waa discibliinka, anshixi kama dhisno wadaniyadii iyo qadiyadihii la sameynayay wacyicelintii ma aysan haystaan. xiliyada firaaqada leeyihiin duruusihii lasii jiray ma qaataan. marka waxaa waaye iyo waxaa soo baxday balwooyin waagi hore aan jiri jirin oo hadda ciidanka soo dhexgalay oo u ah muxuu ahay calaamad madoow oo ciidanka lagu tilmaami karo in cilado ay ka jirta tahay. waa tahay aada baad u mahadsan tahay. xoogaga ammaanka dalka diyaar ma u yihiin in ay maamulaan xasiloonida dalka? haa baan leeyahay, laakiin bishardi aan ku xirayaa, bishardi bay ku xiran tahay. ciidamadu hadda aan ka soo qabano xiliyadii burburkii muddo yaroo gaaban ciidamadii maxkamadaha qaabkay u sugeen iyo ay u hagaajiyeen ma malay kartid. waxaa la rabaa sidii ciidamada waagaa bays loo dhisay oo diiniyan iyo mataqan wax kasta laga dhisaa la rabaa. marka intaa waxay u baahan tahay in ciidankii laga soo dhiso maskaxdooda, la wasaqda madaxda ku jirta laga dhaqo, waa hadday naqato oo balwada iyo waxaan hadda mataqaanaa oo u keenaya muxuu ahay ceebaadka iyo sifada xun u keenaya laga reebo, oo naqado askari soo taagan amarka la siiyana qaadanayo, meeshii gal la yirahda galayo, markaasaytu waa la dhihi karaa, way hana karaan. laakiin ilaa hadda ciidankii moraalmente waa ku liitaan, niyad ahaan dhibaa ku haysto, dhaqaale ahaan dhibaa haysto, muxuu ahaye waxaa kaloo haysta dhibka kala haysta waxaa weeye bulshada ayaga ku galeen. maxaa ciidankan la keeno, maxaa halay ciidankan naftigiisa? aan isweydiino. ciidankan waxay ka yimideen ciidamadii maleeshiyada ahay oo muxuu ahay hogaamiye gacmeed muxuu ahay gobole muxuu ahay qaqablayaashii ka yimideen, kooxyaday ka yimideen. kooxyada kuwii ka yimid ma anshax bay lahaayeen? waa maya. kuwii ayaa haddan hogaanka loo dhiibay oo saraakiilka ah oo anshaxooda dhisnayn oo aqoontooda yar tahay. maanta haddii la yiraa ayaga waa la qaadaa, tababaraa la geynaa oo meelaa la geynaa la yiraa, waxaa su-aal ah maxaa looga bilaabi doonaa aqoontiisa maadaama eber tahay? ma horinaa looga bilaaba, ma kooxa looga bilaaba, korneeloo sidaa gaashaan la dhaxo sidaa. darajadan waxay u baahan tahay qaadashadeeda iyo aqoontaada waa inay isla socdaan. ya janan waa qaadan kartaa, laakiin janan aan kaarta dhigayno adduunya sameynayn muxuu yahay? waa fahamsantaa malaynaa. marka waxa waye ninka shiiqan caalim waxaa la dhihi karaa markuu cilmigiisa muuqdo, waa cilmiga caskariyadda ah inuu si fiican u yaqaano qaabka. waxay weli lagu jiraa qaabbeeleedkii weli ugu dagaalami jireen ayaa taagan. marka dhibkaasaan jiro oo ciidamada ay haysto waa ilaa hadda. dowladdu waxay leedahay qorshe amni sugid, maxay ugu guuleysan ladahay? hadda guuli waa jirtaa oo meesha eber maahan. haddaysan jiri lahayn maanta inta ma fadhideen. waxa lagu fadhiyan ayagaas waa maanta caynayno, waxa lagu joogana waa ayagaa. laakiin aniga guwaabay naga tahay, war meeshaana ka liidatiin hagaajiya. laakiin ciidanka maanta magaalada lagu joogo waa ayagii waaye. maanta wax difaacaya ayaga waaye. ayagoo rafaad ku jiro, abaar ku jirto, dhibaato haysato, ee haddana niyad fiican la joogaan, ay shaqaynayaan. aniga ayaga naftigeeda dheedheel ma aha. ciidanka waxa waaye in la liida ma ahan oo dhulka la dhiga ma ahan. ayaga maanta madaxoodan ku fadhinaa, ayaa magaalada joogto. waxaa dhacaysa waxyaabahaan dhacayo. adii kubaddaa la cayaara waad aragtay, kubaddii kala cayaarayay marba qofaa meel wuxuu ka soo baxsanayo, kaas waa iska caadi. marka waxay u baahan tahay annaga waxaa nagu jirto ilduufiyo ayaa dowladda ciidamadeeda ku jiraan iyo nabad sugid iyo meel kasta naqato. ilduuf aa jiro, laakiin ciidanka wuu jiraa. ilduuf waa taqaanaa. waxaa hadda qaraxyada magaalada soo galayo turwaa cayaaraysaa. marka cayaaraysid haddaa qaldantid ama jar cayaaraysadid waa lagaa raynaa. macnaheed maxay tahay? ilduuf waxa weeye
ayagii xooraantii dabagalkeedii iyo waxyaabihii ay rabeen iyo meelihii ay ka raadi lahayeen si qaldanay wax u heleen ama sixada la siiyey xaggii wax jiraan yar intaa laga soo galay kan siinayo oo xogtaasi asaga ku siinayo adiga naftiisa ku siinayo war meeshan wax kaaga soo socda ku leeyahay adiga waad aamintay you believe laakiin dhinaca kale kaaga keenaa ma fahmi kartaa dalkayga macnigeed waxa waaye ilduufyo badana jiro waa tahay maxay yihiin caqabadaha hortaagan in horumar weyn la sameeyo caqabadihii waxay u baahan tahay wax badanay u baahan tahay caqabadaha jiro waxay tahay baa la fayriyo markii muddo la joogo analyse la sameeyo guddi la magacaabo oo arintaa dabagal ku sameeyo maxaa naga qaldan maxaa naga xun daraasaad sameeyo haddii la rabo hala kaashado hay-adaha ajnabiga aqoonta naga badan hala kaashado macnaa in daraasaad la sameeyo waxyaabaha qaladaadka anigana saxno ciidankeena la rabo in tababar fiican la siiyo sameynta shabakado dadweyne kaalin nooco ah ayay ka geysanaysaa amniga horta halka shay u baahantaha waxay tahay ciidamada iyo shacabka kalsoonidii ka xun kalsooni ayaa dhibaato ah maxaa yeelay ciidankii waxaa kalsooni xumo lagu qabaa inuu asaga naftigiisa ku gacmeysanayo cabsi laga qabo taasaa jirto oo arkaysaa jidadkan isbaarooyinkan la dhiganayo baabuurtii baxaysay waxyaabihii waxay ka wada cabanayaan ciidamadii ay ka cabanayaan inkastoo iska jirto ciidan oo soo boodooya meel oo si qaldan usoo galay ciidankii marka maxaa keenay asaga ciidanka waxaa u keenay macaanigeeda kasta oo qaadanaya iyo balwadiisa ma miisaano waa cilad jirto lana og yahay laisma ogeysiinayo xaqiiqadii macaanigeeda balwada jirto oo ninkan leeyahay balwadiisa iyo mushaarka oo qaadanayo ma aha mid isku dhinto maanta waxuu rabaa waa artay ka baxa taasi mid la inkiri karo maaha tan kale ciidankaas soo haray marka ciidamada waxaa loo baahan yahay in ayagii ay muxuu ahay ay kasbadaan ayaa laga rabaa shacabka ayagaa laga rabaa shacabka markay kasbadaan ee qalbi funaan keeno halka maanta askari markuu soo socdo aad ka ordeysid oo loo soo ordaya la rabaa marka yaa keenyaano ciidamada madaxdeeda iyo ciidamadii inay ku tababaraan saraakiisha iyo hogaankii mujida iyo siyaasad ahaan in la dejiyo barnaamij oo ciidanka si shacabka ay u kasbadaan ee kalsooni ayga helaan oo hadhow beri haddii wax dhacaan askariga u imaan karaan laakiin askarigii markuu ka cararayo dhibkeeda leedahay kan waa kusoo ku baarbaaraa isleeyahay cabsoo ka qabaa taas waa mid waxaa kaloo loo baahan yahay jirto arinta ciidanka kasbashadiisa kaliya ku xiran shacabka isku xirnaanta hay-adaha dowladda khaasatan wasaaradda arrimaha gudaha wasaaradda amniga iyo difaaca askada mid aad doonta u qaado waxaa kaloo jiro wasaaradda arrimaha diinta iyo oqaafta dadku ilaa hadda ma arkaan arrimaha diinta iyo oqaafka inay maxaaha amni ka shaqey karta ma u qabaan maxaa yeele diintan amni ah dad haddii la qaldano dhinaca diinta laga qalday haddii la saxayn dhinaca diinta laga saxayaa marka amnigu wuxuu ku jiraa wasaaradda arrimaha diinta inay dadka wacyigelin ku sameyso maamulka gobolka banaadir isku xirka yaa muxuu ahay wasaaraddaasi markay soo sameyso barnaamij dadkiisay ugu wacyigelin lahaayeen waa sameeya niyadda loo dhiso marka qabin muxuu ahay difaaca kaliya lama saari karo amniga difaaca lama saari arrimaha diinta lagama maarmi karo waa awalu shay waa asalu shay oo diinka islaamnimada ee tahay nabadgelyo amni waa tahay tusaale isku dhafka ciidanka maxay amni sugidda kusoo kordhinaysaa
ciidamadu golley waxa waaye markii shaqo howlgal la galayo waxa waaye shaqada noocee waaye marka waxay u baahan tahay ma wado la xiraayaa ma howlgal dagaal la galayaa ma baaritaan la sameynaya nafsigeeda waxay u baahan tahay howlgalka magacii howlgal keliya maahan howlgalka muxuu yahay asaga aimka howlgalka waa in la ogaadaa ujeedada howlgalka la ogaado marka haddii ay wada shaqeynayaan in la sameeyo guddi ama madaxdi oo qof madax looga dhigo halkaa madaxda looga dhigo amaawiirtiisa looga dambeeyo ciidanka ka dambeeya saraakiishiisa wax kasii dambeeyey ilaa xabarka ka gaarayana ayagana inay amaawiirtaas ay u gaarsiiyaan sidee tahay oo haddii kale qaladka iyoosan imaan haddii isgaarsiinta amaawiirta oo si qalad qofka loo gaarsiiyo qaladaa imaanayo waxaan ku leeyahay mobilkan hebel igu gey tusaale isgaarsiin waayo ama warkaan hebel u sheeg waa baxday hadalkii laguu sheegay hadal ahayna ninka u sheegtay waa ilowday maxaa imaanaya marka communication xunaa imaanayo isgaarsiinta xumaanayso marka waxa weeye isgaarsiinta ma aha keliya midda taleefonka waxa waaye isgaarsiinta qaabka wada shaqeynta laysku gaarsiinayo waa inay noqotaa silsilad toosan oo qalooc aan lahayn oo sidii amarka kow ka soo baxay ilaa meesha u dambeysa ay ka gaarayso taasa lagama maarmi karo waa hagaag waa noocee istaraatiijiyadda loo baahan yahay si loo hanto amniga hadda waxaa loo baahan yahay ciidamadii waa alxamdulilah waa la haystaa kuliyado badanna waa yimideen wax dibadda laga keen wax kasta waa yimideen waxaa loo baahan yahay in hal xero layskugu keeno meel kasta ha laga keeno waa sida hadda kugu sheegaya in qaabka wadankan taatikadiisa oo ahay lagu soo keeno la tuso saanaan u dhaqanaa anaga hadda xagga ka timid saanaan anaga u dhaqanaa qaabkaasayto lana tuso kadibna lagu raaco nin kastaba adigoo haddii lacada wax taqaanid macalinkas haddaa xisaab ku barta ingiriisi carabi isku meeshay imaaneysaa taatikadan waa sidoo kale laakiin qaabkii wadankan uu u dhaqmi lahaa inaad tusid waa cimiladiisa iyo dhaqankiisa tirada ciidamada soomaaliya ma ku filan yihiin sugidda amniga hadda ciidanku waa ku saman yihiin mid kale ay ku xiran tahay ciidanku hadduu yar yahay laakiin tayo leeyahay wuxuu ka fiican yahay ciidan badan oo tayo lahayn meesha waxaa la dayaya ma ahan ciidanka tiradiisa tayada waayo tayadaa qiimo leh laakiin hadduu ciidanka iska badisid qaybihiisu waa waxba maaha lakin waxa waye tayada ciidamada ayaa muhiim ah in la hagaajiyo tayo iyo tiro waa loo baahan yahay laakiin tayadaa ka horumarsinaya aniga waa hadan karayaan haddii dhibaatooyinka bulshada soo jireenka ah burburkii ka bacdi haddii laga daaweeyo waa fahmi kartaa umalaynaa macnigeeda soo jireenka fikrad ah maxaa yeele weli dowladdii hore ciidamadeeda qabiilku ma dhisnayn kuwii ka horeeyey waxaan ka hadlayaa siyaad barre iyo wixii ka horeeyey qabiilku ma dhisnayn ciidan barxan oo qabaa'il kasta leh oo isbideysan oo hal jid u dagaalamaya ahaayeen oo walaalo ah iskashanayo burburkan wuxuu abuuray dadkii maskaxdoodii qabiil iyo waxbaa ku abuurmay ilaa haddadan dhibaato waxay ka jirtaa gudaamihuga muxuu ahaa madaxweyneyaasha hadda sameynayo ciidamo ay samaysteen oo ayaga fikirka dowladda weyn aysan qabin ee wato ciidan maxaad keenaysaa marka waxay keenaysaa caqabad marka waxaa la rabaa ciidamadii ama ha naqato meel kasta ha naqato ciidanku meel kasta ha joogo hogaanka ciidamada waa inuu hoos tagaa amaawiirta ciidamada ama gobol ha joogo ama meel kasta ha joogo waa inuu hal meel amar ka qaataa naqadaa hal meel inuu mushaar ka qaataa waxay naqaysaa marka ciidanku waa hogaansamayaa
laakiin ciidan ninbo meel ka qoranayo asaga wato waa jirtaa, ciidan la qoro waa jirtaa, loona baahan yahay oo aanan hadda laga maarmi karin. waxa weeye ciidanka waxaa jirto nin kastoo wadanka joogo waxaa waajib ku ah inuu difaaco wadanka, waa inuu bartaa qaabka wadanka loo difaacayo. ninkan qoriga haysto markii dagaal run yimaado wuu qaadayaa, wuu jiraa, laakiin asagii maxaa loo baahan yahay ina adiga tababaran tahay. yaa marka waagaan soomaalianka waxay u bixisay maleeshiya, waxbay ula baxeen, ma aha maleeshiyada hadaa midda ma ahan, waxa waaye ciidanka muxuu ahaay laga keenay degmooyinka iyo meelaha laga keenay la sameynayo. marka ciidan beeleedka ma aha midka ka hadlayno, waa ciidan saas ku dhisan la qaadanayo. maxamed siyaad baan si beeleed loo sheegin, wuxuu yiri maleeshiya ciidamada maleeshiya uu magacaabay. waxa waaye waa ciidamada degmooyinka laga keeno waaye, waxay kaalmo u ahaa jireen booliiska. dagaal markeena qada ciidanka la galayna waa la gey jiray, laakiin ogow nin kastoo wadanka u dhashay, heerka horeba ha ahaado, aqoonta horeba ha lahaado, shiiq horeba ha ahaado, difaaca wadanka waa waajib muqadas ah. qof kasta waajib ku tahay difaaca diinta iyo wadanka, waajib muqadas waay. maxay tahay taladaada? waxaan soo jeedinayaa gacmo wada jir bay wax ku qabtaan, in gacmaha la isqabsado. dowladda si gaar ah iyada naftigeeda, wasaaradaheeda, kuwa qaabilsan arrimaha bulshada taabanayo khaasatan, waa in ay ogaadaan inay yihiin wasaaradda amniga kaliya inaan loo saarin. wasaarad kastaba waajibaad baa ka saaran amniga wadanka. maxkamadihii hadday rabaan inay diinta intay meeshaa fadhiyaan maahan, ayagaa asal ah. wasaaradda amniga la sheegaya waxaa ka horeeyo oo nabadgelyada sugideeda ah wasaaradda arrimaha diinta, markay baraarujinta iyo kicinta iyo toosinta ayagaa laga rabaa. waa tahay gabagabadaan soo gaarnay, fikirkaaga iyo taladaada aad baan kaaga mahad celinaynaa. maxaad kale ku daraysaa? bulshada laga maarmaan waayo, bulshada kaalinteeda laga maarmaan waayo, laakiin bulshada waa in la kasbadaa. sidee tahay loo kasbado? waa in muxuu ahaay ciidamada anshaxooda la hagaajiyo, kasbato. bulshada markaa waa ku gacan siinaysaa, laakiin markay bulshada adiga cudin kaa qabto waa dhibaato waay. marka ciidamada, madaxda ciidamada waxaan kula dardaarmayaa in si ay bulshada u kasbadaan waa anshaxa ciidamada ay hagaajiyaan. wuu mahadsan yahay maxamed nuur xaaji. waxaan goordhow gudageli doonaa aragtida daawadayaasheenna ee ka soo jawaabay su-aashan: sidee ciidamada ammaanka ku hanan karaan xasiloodida iyo nabadgelyada waddanka? balse aan ku yara nasanno qadar dhextaal ah. daleesha adigoo fadhiya maxaan dugsi kuula jeclaa, daleesha adigoo fadhiya maxaan dugsi kuula jeclaa, inaan duulxumi ku arag maxaan duca ku aqriyay, balaaya xijaab ku daraye.
daleesha adigoo fadhiya maxaan dugsi kuula jeclaa daleesha adigoo fadhiya maxaan dugsi kuula jeclaa inaan duulxumi ku arag maxaan duca ku aqriyay balaya xijaab ku daraye damiirku maxuu yiri sidaacada ugu adeeg dadnimo qaaliya lahaw damiirku maxuu yiri sidaacada ugu adeeg dadnimo qaaliya lahaw damiirku maxuu yiri sidaacada ugu adeeg dadnimo qaaliya lahaw damiirku maxuu yiri sidaacada ugu adeeg dadnimo qaaliya lahaw دولتني مجيب داعدي موجودين
hagaag aan halkaa ugu gudubno qadarkaasi dhextaalka markan waxaan soo gaarnay qaybtii aragtida daawadayaasheena. daawadaha ugu horeeya ee fikirkiisa dhambaal nagula wadaagay ayaa ku bilaabay assalaamu calaykum, magacaygu waa aadan dheere. amniga Soomaaliya runtii waa la hanan karaa buu leeyahay haddii la alkumo ciidamada xoogga Soomaaliyeed buu leeyahay. daawadahan kale ayaa ku bilaabay magacaygu waa Axmed Nuur ku nool degmada Wadajir. nabadgelyada Soomaaliya waxaa lagu hanan karaa buu leeyahay in ciidamada shisheeye laga saaro guud ahaan Soomaaliya, taageeradii la siin jirana buu leeyahay lagu wareejiyo ciidamada xoogga dalka. daawadaha xiga waxa uu ku bilaabay assalaamu calaykum, waa Aamina Raaliya ayay tiray gaan fiican haddii la helo ciidamada amniga way hanansi. daawadaha kale ayaa ku bilaabay magacaygu waa Cabbaas Cali galbeed buu leeyahay waxaa lagu hanan karaa in dowladda rafka ciidanka Soomaaliyeed buu leeyahay iyo tayentooda ayuu soo raaciyay. mahad celinaa. daawadaha kale ayaa ku bilaabay magacaygu waa Cabdullaahi Cilmi ku sugan buu leeyahay degmada Daynile gobolka Banaadir. waxay ku hanan karaan buu leeyahay in ciidamada ammaanka in ay si dhow ka Soomaaliyeed ayuu ku soo koobo fikirkiisa tahay waan uga mahad. daawadahan kale ayaa ku bilaabay waa idin salaamay, magacaygu waa Kiim Yuusuf ku sugan buu leeyahay Kismaayo gobolka Jubbada Hoose. waxa ay ku hanan karaan buu leeyahay in marka hore agabkanaayeen la siiyo ayuu leeyahay ciidamada, daryeelna ay helaan ay u helaan. waxa ay taasi suuragelin kartaa buu leeyahay ku noolaadaan nabadgelyo ayuu fikirkiisa kusoo koobay. aad ayuu u mahadwadahaasi. daawado kale ayaa ku bilaabay waa idin salaam, waa run buu leeyahay haddii ciidamada la mideeyo waan karaa amniga Soomaaliya iyo sidoo kale guud ahaan dalka fikirkiisa kusoo koobay. waa tahay waan uga mahad celinaynaa daawadahaasi. kan xiga ayaan soo qabanayaa waxa uu leeyahay assalaamu calaykum, magacii Asad Beerey buu leeyahay sida uu kusoo qoray ku sugan Cadaado kartaa buu leeyahay haddii ayba waa tahay daawadahaasi su-aal ayuu na weydiiyey waan ka gudbeynaa. daawadaha xiga waxa uu ku bilaabay waa su-aal haddii ciidamada amniga ay la shaqeeyaan shacabka, waayo shacabka ayaa looga baahan ay taageero siiyaan ciidamada. waa tahay waan ka mahad celin. assalaamu calaykum, magacaygu waa Raxmo Cabdi Aamiin bay leedahay shacabka iyo ciidanka oo wada shaqeeya ama wada shaqeyn dhexmarta ayaa lagu hanan karaa nabadgelyada Soomaaliya ayay leedahay. waa tahay daawadaha xiga daawadahan waxa uu ku bilaabay assalaamu calaykum bahda STN, magacaygu waa Cabdirashiid Sheekh buu leeyahay ku sugan magaalada Marka. ciidamada waxa ay ku hanan karaan buu leeyahay dalka amnigiisa in marka hore baahiyahooda ciidan la daboolo buu leeyahay. waad mahadsantihiin bahda STN-na waa uu soo raaciyay. sidoo kale waan kaaga mahad celinaynaa ka qaybgalka barnaamijka. daawadaha ugu dambeeya ayaan soo qabanaya. waxa uu ku bilaabay waa idin salaamay, hoggaan haddii uu fiican yahay buu leeyahay bulshada way fiicnaani, ciidankana waxa ay u sahlaysaa buu leeyahay taasi in ay ka shaqeeyaan amniga ayuu leeyahay. waxaan soo gaarnay qaybtii ugu dambeysay ee barnaamijka. waad ku mahadsantihiin la socodka barnaamijka. waxaan filayaa in aad wax badan ka hesheen oo uusan idin seegi doonin. inta aynu ku kulmi doonno barnaamij mid kan la mid ah, nabad iyo baraara.